madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii la soo dhaafay ay ku joogeen dalka aan walaalaha nahay ee sutaga Imaaraadka Carabta madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kulamo la qaatay madaxweyne Maxamed bin Saayid oo ay ka wada hadleen kor u qaadida xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal fududeynta sharciyada dalku galka isku socodka badeecada kobcinta dhaqaalaha horumarinta bangiyada iyo xoojinta maalgashiga dalkeena sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isku tag Imaaraadka Carabta isagoo ka dhageystay warbixin ku aadan caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan waxa uu sheegay in dawladdu dadaal ku bixinayso wax ka qabashada cabashooyinkooda waxa kaloo jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud laga helay caabuqa COVID-19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyay xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay calaamadihii COVID-kana ma laha madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay waxa uu si caadi ah u wadan doona hawlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegida qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19 waad mahadsantihiin wixii su'aalo ah xubno kale oo wafdiga ka mid ah oo laga helay way jireen intii aanu halkaa joognay laakiin maanta negative bay ahaayeen positive ma ahayn magacaaga iyo halkaad ka madaxweynaha maanta laga helay 3 maalmood ka hor laga helay muhiimaddu waa madaxweynahana maanta laga helay ayaa kala su'aal qaba magacaaga iyo halkaad ka socoto istaag fadlan haye marka dal loo martiyo arrangementska sida loo kulmayo iyo miitinadu waqtiga ay dhacayaan jadwalka kulamada waxa iskale dalka martida loo yahay sidaasayna u qorsheeyeen iyagu Sakariya Shabeelle codka kor u qaad إسرائيل ما إمارات كي كل احتلال ما إسرائيل هدي أي نقطة إن سومالي ما دام أن حرير دبلوماسية بالهين إسرائيل هدي أي نقطة إن لا تجنا وحلا قرينا يماها لكن لما تجين هذا وحلا تجي وإمارات كعربته إمارات كانوا حكوية الله هلك إمارات حكوية له إسرائيلنا إمارات ككم احتلال له aad baad mahadsantahay waxyaalihii ugu waaweynaa ee laga wada hadlay waxay ahaayeen wax jaaliyadihii iyo ganacsatadii Soomaaliyeed ee meesha lagu kulmayna cabashooyinkooda kamid ahaa wixii labada wadan xiriirkooda ka xumaaday hagaajintoodana wax weyn ka tari lahaa haddaan qodobadii ugu muhiimsanaa idin sheego waa 20 milyan oo ay ugu deeqeen abaaraha waxaa la fududeeyay fiisaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku tagayaan dalka Imaaraadka Carabta waxaa kaloo iyadana qorshaha ku jirtay in Imaaraadka diyaaradahooda shirkadaha diyaaradaha Imaaraadku ay iman doonaan oo adeegyada duulimaadyada ay ka bilaabi doonaan Soomaaliya waad ogtihiin markii ugu horeysay waxa bilowday Turkish Airlines markii diyaaradaha kale caalamiga ay ku soo darsameen dhaqdhaqaaqa isku socodka dadka ganacsiga dhaqaalaha wax badan bay ka tartay marka hadda ay kuwa Imaaraadku ku soo biiraanna waxaan rajaynaynaa inay wax badan ku soo kordhin doonto waxa iyaduna jirta in wafdi heer caalami ah oo Imaaraati ay halkan iman doonaan iyo guddiyo isku dhafa oo la sameyn doono si ay uga shaqeeyaan arrimaha la isku raacay
وأوسع ونكسنين أو وجوسي محل وضع هذي وقصة بسنة حديدي هاي وحنا على لبلد الدنيا. horta maxamedow soo maxamed maahan magacaagu maxamed waxaa isbedelaa dowladda maahay waa xukuumadda dowladda Soomaaliyeed wali waa sideedii waxa laga wada hadlayna waxay ahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladdeena federaalka ah xiriirkaasina wuxuu ku salka ku hayaa mid ammaan mid ganacsi mid horumarineed iyo mid walaaltinimo maadaama laba shacab oo walaalo ah jaamacadda Carabta ku wada jira islaam wada ah aanu nahay arrintaas aad xoog loo saaray oo looga hadlay SBC magaca Abdullahi okay iskaashiga iyo wax wada qabsiga labada wadan ka dhaxeeya oo dhan walba ku saabsan ama amniga ama ganacsiga ama horumarinta ku saabsan waxa go'aanadooda gaari doona iyo sida ay u fuli doonaan gudiyada isku dhafka ah ee la sameyn doono ayaa kala su'aal kala qaba aways mustaqbal طبعا ومري دونا waxaa jirta madaxweynuhu waa shakhsi Soomaali ah waa astaantii qaranka wax walba oo waajib ku ah muwaadiniinta Soomaaliga ah waajib ku ah wax talaabooyin walba oo looga baahan yahay taxadar ahaan qofka covid laga helana wuu mari doonaa arrinta fiisaha safaaradda waxaa already la amray oo madaxweynaha dalkaasi amar ku bixiyay in laga soo tala bixiyo la soo qorsheeyo sidii fiisaha loo fududeyn lahaa marka qofka Soomaaliga ah isagoo xamar jooga ayuu ayar baasaboorkiisa qaadan doonaa safaaradda Imaaraadku tagi applicationada la bixiyo nidaamyada loo maro markaad marto fiisaha ayar baad soo qaadanaysaa waxa kale oo inta dheer oo arrinta fiisaha ku saabsan iyo isku socodka dadka Soomaaliyeed ee Imaaraadka degan ee ama iqaamooyinka ku jooga ama fiisahayaasha kale ku jooga iyagana in si ka dabacsan ka fudud ka wanaagsan sidii hore loola dhaqmi jiray loola dhaqmi doono hay wax su'aal ma qabtaan aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم